السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حليمو ساتم في عنتهاي حالدين كورمو صباح وناكسن أنا هتا عندها سوق القاضي حتى مركتا عندها سوق القاضي صباح حرواي سقال كده يسو ستاتي أو واحدة مواي I swear I like it. Anyway, so the wall YouTube channelkii kusoo dhawow saan balankaa qaaday week kasta la video soo gelin doonaa. Videoga hore ayaan tidhawda soo geliyay, videogana video kale waaye. Videoganita waxaa uga hadlayaa codsigaas oo iga imaaday xaliimooyinka faraha badan oo la dhahay nimanka oo qalbiga ku ciyaara nooga sheekay maxaa lagu kasaa. I don't know, naaga xilligay wax fahmi doonto aan fahmi lahay aniga, laakiin waxaan ku sheegaa nimanku xilli gooniya ee qalbiga ku ciyaara ma jirto, ama niman gooniya oo qalbiga ku ciyaara ma jirto. nin oo dhan ashaqadaas ka siman, nin oon ku jiidgaraynaynin adduunkanita ma jiro. hadduuse asiga ku jiidgaraynina adaa jiidgaraynaysid, because adiga laftarkaagu malaa'ig matiid moogido. maybe allah rabiyo waxaa isku haysatiin inaad dad fiican tihiin, malaa'ig tihiin, waxun samayn karin. But anyway, nin aniga hadda koorna kuu sheegay, haddana waa kugu soo celinaa. arano waxaa jeceshiina u malaynaa hadalka lagu celceliyo waa layska daba socsocdo maanta dhan. I don't know, ba aniga mawduucanita maragta waa ka daalay, markasta ma ka hadli karo mogta. 100 mar kasoo hadlay, TikTok uga hadlay, intana uga hadlay. By the way, follow me on TikTok haddana i follow gareyn ma fahanteen. waxaa waaye kuwin qaawan, YouTube-kayga xataa magaciisa kuwin qaawan oo bedelaya. Anyway, maxaan dhahdaa, sheekada waxaan ku waday waxaa waaye nin haddaa rabto inaad ka aarsato, haddaa rabto inaad ka guulaysato, haddaa rabto inaa maxaan dhahdaa aan qalbiga lagaa jabin, wicitaanka faraha badan laka day, massageka faraha badan laka dhaaf, ku dhegdhegista faraha badan laka day. Because marka qofka bini'aadanka ku dhegdhegto, adiga waxaad siisay jaanisaa u banaysay. Already wuxuu og yahay qofkaa tahay, already wuxuu og yahay tii shalay uu ka imaaday inaadsan ka duwaneyn oo tii oo camal aad tahay mogtahay. So marka maskaxdaada isticmaal, maskaxdaada waxaa waaye inaa hal nin inaa maanta dhan 100 message raa u dirto, macaano waa ku jecla, macaano saan, macaano inta ka baxday, macaano kii kala, macaano ma cuntaysa, macaano ma qadaysa, macaano kan ma cuntay, macaano kii kala ma cuntay, macaano caana ma cabtay, macaano ma qabaysatay, macaano shaatiga xirantay. Namaadaa dhalay maxaa kaa galay? cajiib shiiqo maxaa kaa galay? hadduu shaati xirta iyo hadduu isqaawiye iyo hadduu meesha ka ordo iyo haddii uu waxaan ku dhahay asoo muriya gaclo banaanka u baxo, maxaa kaa galay? maxaa uga walwalaysaa inta maantana asii ka walwalaysid ee dhehaysid naagaa dhasho horta ninkaa moogta banaanka usoo dirsatay oo soo korsatay. So adiga haddaa rabtid boyfriend aa raadsan, haddaa rabtid nin aa korisan, maaragta san naagaha soomaalida nin aa korisa raadne. rule number 1 horena waa kugu sheeganaya, maantana waa kuu sheegay, dhegeyso. weligaaga adduunka inaa ku nooshahay nin lacagaas ka siin, adiga lacagta qaado. rule number 2 waxaa waaye weligaaga nin inaa adduunku intaa ku nooshahay maalintii hal message ka badan ha u dirin. weligaaga nin inaa ka nooshahay adduunka, maaragta intaa ku nooshahay adduunka, isagu inuu kusoo waca maahane, ilaa ay muhiim tahay maahane ha wacanin. It's not like inaa ma aragtaa aad jeel ku jirtay waxaasito, but it's good for you. saas darteed ku protect garaynaysa, taas waaye. number 1 waxaa tusisay inaad ka maaranto. number 2 waxaa tusisay inaad u baahnayn. number 3 waxaa tusisay noloshu la-aantiisa inay socon karto. so ninna saddexdaas hadduu og yahay ma aragtaa, asaa ku daba ordaaya. laakiin naftaada camal ka soo qaad, nin oo maanta dhan aa wacaysid, nin oo maanta dhan aa daba socotid, nin oo maanta dhan aa waxaan ku dhahay adheys beeb maxaa cunta halka ka baxday, wuu ku sanifa. ani xataa ma jeclo qofba maalinta lambar soo waca. qof kastoo bini'aadanna mataqaana saada camal waa. kastoo soomaalidu jeceshahay telefoonka oo maxaan dhahdaye lagu wara hadlo. maanta dhan anaa lee bariyo kuwan qaadadahay whatsappkaagisi dadka qaar markaa ka xishooda whatsappkayga siiyan waxaan kura group aa laygu daraa, groupka iska tuura, haddana group kalaa laygu daraa, waa iska tuura, haddana group kalaa laygu daraa, waa iska tuura. soomaalidu wax aranow dhaqan qaab daranay qabaan, because sidii inay saaxiib yihiin bay maanta dhan waxay rabaan inay telefoonku waraha hadlaan 2 saacadood 3 saacadood. what's the benefit? aad maanta telefoon ku hadlaysaa, boyfriendkaaga xataa noqdo. naag waxaa arkay hadda ka hor telefoon ku jiifanaysa moogtahay, was ag jiifsanay. so habeenkii waxaa ka seexday ayadoo telefoon ku hadlaysaa. subaxii markaa soo kacay waxaa maqlayaaba waxaa dhahay maxaa waxaan. se waxay dhahday
baybigayga hurda naa baybiga aabbaha dhakada ka qabsaa dhahay ninkaan xalay oo dhan marka aniga duduusayay waxaa dhahay privacyba maba haysan baby because ani marka hurda privacygayga waxaan jeclahay 100% inuu noqdo waxaa ku dhahay privacygaygaaba faylad garaysaba adiga naaya maya baybigaygu waaye akaad jiifto walaalay dhaaf si wuxuu dhahay macaani hadalka hoose dhig waxaan dhahay naaya wax ma ku sheegaa adoo guriga joog waxaan dhahay maamuli maysid bax waxaa dhahay qolkii oo ay norwejianku siiyeen la tagaa dhahay sirta anas kale marka telefoonka kula seexanaysiin soo markuu kaa xiisa dhacaa wuxuu bilaabay inuu isbedelo bilowga nin inuu isbedelana waxaa kamid a maaragtaa number 1 waxaa lagugu bilaaba telefoonka in lagugu yareeyo haddii maalintii lagula hadli jiray for example hadduu 1 saac kula hadli jiray wuxuu kula hadlaa 30 daqiiqo camal 30 daqiiqo because hadda kuma baahna mogtahay wuxuu ogyahay 100% inaad asiga jeceshahay marka wuxuu sameyn karaa wuxuu kaa dhiganaa alaabu meel dhigta camal markuu rabo uu ku imaanaa markuu kaa xiisa dhaco suuqiisu galaa because suuqiisa u furanaa kala shukaansadaa nin oo Instagram-ka ma aragtaa haysta waxaan naag weyn qaabna ku dhaw social media cararaysa horta nin kuumaba noqdaba nin oo Instagram-ka follow gareynaya naag kasta ninkaasayto nin kuumaba noqon karo sababta ku sheegaya adigana wuu ku rabaa stilna raadsigu ku jira because wuxuusan helayn ayuu raadinaya kuwin qaaban camal uu raadinaya uu ogyahay inuusan heli karin trust me ama naaga cadaanka maaragtay uu fiirinaya muxuu bilaabaya nimanka saqajaamin waaye inuu iska barbar dhigo adiga jirkaaga iyo jirka naagaha oo Instagram-ka ordayaan so wuxuu dhahayaa naagahanba because nin hadduu ku arkaa adiga oo bikin xiran ama adiga oo siyara ama adiga oo qaaban camala wuxuu u maleeyaa inuu ku heli karo because maskaxdiisaaba waxay tahayba waxaa loo sheegay everything aa heli kartaa because ninaa tahay adduunkaada maamulaa loo sheegay so marka wuxuu bilaabayaa inuu is ag dhigo jirkaagii iyo jirkii naagaha suuqa ordayay wuxuu is ag bilaabaa inuu is ag dhigo wuxuu dhahaa okay tan hadda waad haysataa tan iskaga meel gaar yah banaagahaasuu rabaa so nin oo ma aragtay social mediaha meesha aad aadaba like-tiisa aad arkaysa Instagram-ka aad arkaysa like-tiisa mugtahay aad arkayso inuu maxaan dhada intaasoo naagood oo followers uu haysto oo maxaa la dhada IG model maxaan dhahay kaasayto nin kuumaba noqon karaba nin ma kuu noqdo nin laba account oo fake page haysta maba kuu noqon karaba nin Snapchat-ka maanta dhan private wax ku diraya nin ma kuu noqon karaba runta ma ku sheega nin oo TikTok maanta dhan naag daawanaya nin ma kuu noqon karo because hamigiisii adiga kuguma eeka xaliimoy sometimes waxaad arkaysiin oo labadiina indhood ku arkaysiin baad iska ignore garaysiin nin aad arkaysa maaragtaa haddii uu maaragtaa follow gareeyo naagaha okay iska waa fiirsadaba that's okay ba waxaad ogaataa ninkaanayto inuusan adiga kuu soo jeedin nin kula dagaalamaya markaa dhahdo heblaaye aan follow dhe ninkaasayta kuma rabo nin ma aragtaa because hamigiisa iyo qalbigiisa maskaxdiisa wuxuu iska dhaadhiciyay inuu naagahan kala heli karo hadda ma heli karo wuxuusan ku heli karin jeebkiisa waa maran yahay faarax waaye waxa ma haysto cid rabto ma lahan asiga le ma aragtaa hamigiisa le weyn faaraxna ma aragtaa qalbigiisa waa TV camal mogtay TV wixii ka soo baxle wixii ka soo horbaxa ma aragtay TV ga ma aragtaa marka fariisatay remote ka qaat wixii ka soo horbaxa le fiirsanay sometimes mogtay sas wifi faarax camal because especially haddii TV-ga oo dowladda kugu jiro ma aragtaa oo NRK-ga bis iyo kuwaas TV-yada dowladda aa fiirsatid oo Netflix waxaa iisanin just ma haysatid inkastoo imika YouTube jiro alaali wixii kaasoo horbaxa iska fiirsanay soo farxa qalbigiisu saas waaye waxaan ku dhahay wuxuu rabo ma oga wuxuu yaqaano ma arkin because ninkaanito wadan la-aan uu soo koray dowlad la-aan uu soo koray oday jaahila dhalay islaam waxaa dhashay maxaan dhahdaa sidii ayada loo soo koriyo usoo korisay single mother haddii kale soo korisay isna like single mom to inay waxun tahay aniga markasta markaa single mom dhaha maaragtaa ama markaa kelmad haddada afkayga ilaashtaan kelmadaasiita maanta dhan la turjumaya haddaad turjumato ood xumaan kelmadaasiita ka dhigato up to you waxaan kaaga qaban karaa habeeraata ma jirto laakiin haddaan kuu sheegayaa xumaan iga maahan so single mom ninkaa soo korisa maaragtay qofkana labada waalid haddaysan soo korin waxaa ka maqan wax ayaa ka maqan wadan la-aan uu soo koray rafaad uu soo koray hadduu rabana meelahaanuba ku dhashay meelahan ku dhashay maaragta shariito jir markuu gaari gidaaradu ku koray aska ogtay xaaladda oo qorbaha waxba indhaa iska qaban 15 markuu yahay maaragta gidaaradu ku koray
so ninkaanito hami ma lahan. That's why maaragta wiilasha Soomaalida maaragta waxaad arkaysaa ku isku lameeyay oo shaqo fiican haysta oo shaqaysta oo yacni fikirkiisu dheeriya waxaad arkaysaa 10% aad arkaysaa Soomaalida wiilashooda. hadda beeshayga waa beenta soo badhihi kartaa 10% ayaad arkaysaa nin Soomaaliyeed oo wax bartay 10% kale ayaguna jira 10% kale waa kuwa daryeeysan daryeeyadu waxa waaye calashan wadankii joogan ama Afrika joogan ama Soomaaliya joogan iskuul bay dhameeyeen habin dheer bay haystaan waqtiga ayaa ciilay so faarax ma aragtaa waa tusaale ku siinaa waa nimanka markay inay badaha soo jiiraan meelahan imaadaan inay cabitaan bilaabaan inay cabitaan cabaan hore ka bilaabaan because hamigii uu lahaa ee weynaa ayaan jirin hamigii uu lahaa weynaaye badan jibinaya adduunkan maraya halkaan ka dhacaya halkan kalaan ka dhacaya ahaa ayaa jabaya soo marka la dhaho wax ma ku sheegnaha Soomaaliya maxaad soo dhigatay u dhaho dugsi dhaxan soo dhimay naga fadhiiso ordo waxa la dhahaa luqada baro oo dib ugu noqo uu jabaya cabitaan bilaabay inuu cabo ama naagu bilaabay inuu arooso so adiga shaqadiisa hadaad naag Soomaaliyeed tahay nin Soomaaliyeed waxa tahay shaqadiisa so sheekada dib kugu soo laabto nin oo kugula dagaalamaya Instagram-ka hiblaaye ka delete garee ama hiblaaye unfollowde ama maxaan dhadaa hiblaaye maxaa telefoonkeeda u haysataa girl kabahaaga inaa qaadato orod because ninkaasi ta maaragtaa waa ku dhimad xataa hadduu ku aroosa maaragtay ani waxaa la yaabay gabdhaha waxay dhahayaan saasaa ku dhahayo wuxuu ula dagaalamay hiblaayo unfollowde kadibna haddana maxaan dhahdaa ba haddana u samray saad ugu samray waabad ogtahayba inuu ninkaan ito uusan kuusoo jeedine haddana red flag anaa ku sheegayso calanka cas maaragtaa waa qofka waxa ka qaldan number 1 ninka hadduu ku dhahaa habeenay maalmo aragta waa ku aroosa wuxuu og yahay waxaad adiga rabto so muhiim waaye inuu kuu sheego waxaad adiga rabto markaad dishaanba haddii aad jeceshahay wax xadiidiri kuu keenaa ama hadalka adiga ku qaboojinaya markaas dagaashaan uu maxaan dhahdaa ku dhahaya sababtuna waxaa waaye because he knows warkaasi markuu kuu sheego inaad degaysid boqofka aad ku aragtay waxaasoo red flags maxaad u rabtaa inaad u aroosto because mustaqbalku ma aragtaa iyo guurku waa wax weyn inkastoo Soomaalida maaragta guur la galay uu ka soo baxay yahay but always naftaada ka fikir oo qalbigaaga ka fikir oo iska dhaaf fikradan yaraad meel soo ka fiirinaysid weligaa waxaad fiirisaa aragti fog fiiri aragtida dhow ka baxso so haddii aad aragto nin oo dhowr maalin inuu kaa maqnaado kuu soo laabanaya waabad ogtahay player inuu yahay haddaad aragto nin oo kugula dagaalamaya social media dartiis waad ogtahay inuu player yahay haddaad aragto nin oo kugula dagaalamaya hiblaaye oo afkeeda fiirsada indhahayga ku arkay indhahayga naga lagula dagaalamay kuwin qaawan OnlyFanskeeda fiirsada because FaceTime ugu jira ninkaas ay dhahday waa ifure uu day inaan ku furo aan saddexda ayga tuuday wallahi na sabbe sheegayn inventi so nin oo waxyaalahaas kugula dagaalamaya aniga business la'aan hadda ay gu ridinayaa maxaa nin oo waxyaalahaas kugula dagaalamaya ma aragtaa maxaa ku falaysaa walaale tan kale ma ogtahay xaliimoy noloshu mar hadduu guurku kaa xumaado oo mar shukaansigu kaa xumaado oo relationship inaad soo marto qalbigu kaa jabo ma ogtahay inaad u baahan tahay waqti oo aad heelgarayso oo naftaada keligeed aad single iska ahaato oo wixii danahaaga aad raacato oo wixii danahaaga aad qabsato oo the day maaragtaa qofkii oo lagugu talagalay hagaagsan uu ku imaado because aniga sometimes marka badan markaa ku dhahaya maaragtaa naayaa hankaaga oo sarreeya maaragtaa wax weyn ayuu ku dhaafiyaa kuwin ana hadda shalayna oo ku sheegay mugtamaadna kugu celinaa kuwin qaawan oo la bahdilay noloshaada arkimaysa kuwin qaawan oo nin wadata arkimaysa kuwin qaawan waxay kuu sheegto bisaad aragtaa kuwin qaawan oo meelaha in la wadwado waraysan ayadu dhihin lagu wadwadana arkimaysid sababto ama taqaanaa naaya aniga waxaa nahay kuwin magaca la sheegayo anaa iskale anaa la iigu talagalay because ani waxaa ogahay lugteeda meesha dhigayo afkayga markaa kala furaayo siilkayga markaa kala furaayo sababtu waxay tahay bigonna lama dhihi karo intaan tiktokyada dadka qabsado jareertii ma bahdili karaan jareer intuu ku imaado ku dhahaayana maaragta kuwin qaawan waan wasisanisaan waaye haddaa soo aragto lacaga ku siinaa because aniga jareerta oo saqajaamiinta maaragta iyo nimanka oo saqajaamiinta maba la sheekaysta maani because hankayga iyo kibirka igu jira haddaa og tahay walla waa yaabi lahayd that's why aanadii arkaynin ayadoo meel hale wado anigoo nin dhahaya maxaane baby oo la dhahaya bigon you talk too much disappear iyadoo la dhahay maaragtay weli arkimaysid
so ani markaa ku dhahay maaragtaa hankaagu ha sareeyo naa waa qurxoontahay quruxdaada waxoogaa kibir ku dar naa quruxdaada waxoogaa han inaa ku darto sanka taag oo ha isdhihin wixii ku soo maraba waa kii keliya ahaa ee kuugu horreeyey ee kuguna dambeeyey adduunkan qof kasta oo ku nool qof baa loogu talagalay qof ayaa loogu talagalay so qofkii lagugu talagalay waad helaysaa maalin maalmaha ka mid a laakiin hankaagu hadduu hooseeyo sida maaragtay naagaha soomaalida ku dhacdanba kugu dhici waad ogtaysa ku dhacdana habeenii maalin way qalbi jabayen waxay ka qalbi jabayeenna ma yaqaanaan habeenii maalin way oynayaan waxay ka oynayaanna ma yaqaanaan habeenii maalin way murugaysan yihiin waxay ka murugaysan yihiinna ma yaqaanaan habeenii maalin inay shukansata haddana financial problem haysta so sister player is a player ma bedeli kartid ha isdhihin nin islaameed yah oo maxaan ku dhahay tii dhashaba soo kari weysay oo idhahaysa maxaan dhahday allah inankii wiilkiya guriga ii jooga maxaan sameeyaa gabaraa u raadinaya because waxay rabtaa inay iska dirto because uu kadeeday mafahantay tii dhashay ayaa soo dirtay oo hayn kari weysay adama hayn kartid so inaa qof bini aadan inaa koriso aa isku daysa mataqaana naftaada korsiima kaaga baahan anyway waa kaasito videogan 16 daqiiqo maraya subax hore waa anigana bahaya heesa inaan ka coondanahayga qabsado waa maanta waxaan hagaajinayaa alaabiyo waxbaa ii imaado waxaa xirxiranaya mafahantay horta marka hore jiimka aaday jiimka marka ka imaado shaqo badana ii taala so waa kaasito khayr badana idin rajaynaya tan kalena sheekada weli idinka balaqaad waa soo socotaa because mafahantay I have to meditate a lot waa inaan maskaxdeeda maaragtaa deep down sheekada kasoo kaciyo oo aan dhaho let me let you go sababtoo mataqaanaa haddaana saas samaynin marka oo videoyaashida lasoo qaaqaato oo warkayga la keenkeeno way dhibi doontaa warkaasi taa idiin sheegay anaan afkayga idinka sheegay markaasa meel soo fadhiisan doonaan dhii doona maxaa lay caynaya maxasan lay dhahaya maxagii kale lay dhahaya taas ani warkaa maqaan mogtahay wax markaa sheegaya special oo aniga personal ah waxaan jeclahay inaan nafteeda waqti la soo qaato oo deep down aan aado oo kadib aan dhaho okay let me let you go because hadda waqtigaagii waay because warkaasi markii igu soo noqday ma dhibaayo shalay toolyan waxaa arkay ta ugu dambeysa idiin sheegayana waxaa waaye okay 20 daqiiqa noqday videogan ta ugu dambeysa idiin sheegayana waxaa waaye social media aad ku oynaysaan gabdho iska dhaafa especially haddaa Europe joogtid it's okay inaa emotional noqoto yes it's okay inaa oydo haa ba waxaan kuu sheegaya mataqaanaa markaad soomaalida ka dhex ooyeyso soomaalidu naxariis badan ma qabto soomaalidu naxariis ma lahan soomaalidu kaa nixi mayso because ayagaba lagama soo nixin soomaalidu dad xun maahan laakiin naxariis badan ma qabaan because dadkaanayto dhibaatii soo wada arkin qofaan dhibaato soo arki ma jirto dhibaatadu markay kaa farabadatana dhibku wuxuu kula noqonaya okay so markaad qofkaa camal aad u oyso marka hore waxaa lagu dhahaa san kadibna waa lagu caynaa because maraa madaxa kuu saarnayn waanad xijaabnayn shalay waxaan arkaya gabaroo cunug laga qaatay oo oynaysay oo naaga meesha inay usoo koreen ay ku qoslayeen I believe gabadhaas jarmal inay joogto so abay macanto haddii aa ma aragtaa dhibaatadaasi ay ku haysato number 1 lawyer qabsane number 2 therapy ahaade number 3 one day haddii gaaladu maxkamad ku geeyaan everything aa social media ka leedahay waa lagu soo qaadanaa so waxa muhiim ah mataqaanaa afkaaga waxa kasoo baxaya inaad ilaaliso haddii ilma lagaa qaatay ama ay qolada ciyaalka qaata kugu daba jiraan because waxaad u malaysaa inaad mataqaanaa aad free speech tahay ba maxkamad free speech waa tahay ilaa maxkamad lagu geeyo free speech wuu jiraa ilaa maxkamad lagu geeyo because maxkamad marka lagu geeyo waa inay caddeeyaan inaad hooyo ilmaheeda haysan karin aad tahay sidee ku caddeyn karaan waa inay keenaan every little thing oo noloshaada meesha aad intaad wadanka imaaday aad gashay iyo meesha aad joogtay oo ku jiro wax aad social media maalinta aad samaysatay ilaa maanta aad ka dhahdo adigana waxaa arkay tookal waxaan arkay waraaqaha ay usoo diraan kuwa ciyaalku ku dhex akhrinaysa maxaa la dhahdaa TikTok oo dhehaysa hoodasooyinka waa kaaga dhamaata adigana ilmahaaga ilmasaar maysid ogow so always haddaa maxkamad kuu ballansan tahay afkaaga inaa ilaaliso muhiim waaye because waa lagaaga guulaysanaya sometimes afkaaga ku xiraaya sometimes afkaaga ku dilaaya sometimes kelmadaha oo cadow waxa kugu waxaad leedahay dadka shisheeye cadow kugu ba shisheeye cadow kugu maahan afkaaga iyo hadalkaaga ayaa cadow kugu so haddii aad lawyer haysato oo maxkamada kugu socoto ama maxkamada ku ballansan tahay ama ilmahaaga lagaa qaato ama any other maxkamada haysatide always iska imo social media ba afkaaga gabarey ka adkow
because afkaagu waa waxa kaliya ku xiri doona ku dili doona anyway جمعة مبارك بالغ قبطة يدير جينايا مع سلامة سبسكرايب صار حاسدمد اسكداف ما فهمتي حاسدمد اسكداف سبسكرايب كرا يوتيوب كيغا شير كرا فيسبوك كي مeel kasta gee maanta dhina idinkama fadhiisanay waxaa idinku qaawinay soo laabo waa soo laabtay waa kana maxaa idinkana idin mee ciao